halkani waa garoonka weyn ee magaalada Hargeysa Stadium waxa jooga 8 dugsi oo kamid dugsiyada Hargeysa ee dugsiyada sare iyo hoose dhexe waxaana weeyaan 700 oo arday waxa ay u diyaar garoobayaan xuska 18 May la soo noqoshada madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ku faraxsan yihiin in ay dabaal degaan isla markaasina ay shucuurtooda soo muujiyaan waxyaabaha ay halkan ku soo bandhigayeen ardaydu waxa kamid ahaa gaardiskii ciidanka taasi oo ay ka muuqatay in ay tababar badan soo qaateen waxaaba dhici karta in haddii looga baahdo inay ciidan noqdaan dalkooda iyo dadkooda difaaca inay difaaci karayaan maanta waa maalin nooga duwan maalmaha kale waxaan u dabaaldegaynaa 31 guuradii ka soo wareegtay markii ay dib ula soo laabatay dawladda Soomaaliland xornimadii lutay 1960kii maanta waxaan rabaa inaan laba eray ka idhaa halkan Soomaaliland qaran socday oo tallaabsaday kali suga aqoonsiga sanad guura weeyaan 18 sumad qaran ayay tahay wassalaamu calaykum maanta waxaan u dabaaldegaynaa sanad guurada 11aad ee ka soo wareegtay aasaaskii Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo ah xuska ay dhimay kaasoo maanta anagu ahay hogaamiye iskuulkayga Sheekh Ibraahim Sheekh Yusuf Secondary maanta waxaan aad ugu faraxsanahay anigoo ah jiilkii labaad ee u soo kacay Soomaaliland in aan dalkaygii ku qaato farxadii 11aad kaasoo noo suurtagelisay aabayaashayo waalidiintaydii noo soo tabcay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato ardayda maraysa 18 May dhammaan shucuurtoodu way faraxsaneed waxaanay ku faraxsanaayeen la soo noqoshada madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo 1960kii dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu la midoobay qaybihii kale ee dalka Soomaaliya 1991kii 18 May Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay dib ula soo noqotay xornimadeedii iyo madaxbannaanideedii ay xor ku ahayd munaasabadan waxa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada mas'uuliyiin kale oo ka socda wasaaradda waxbarashada iyo laamaha dawladda waxaanay ku dhiiri gelinayaan ardayda inay noqdaan qaar dalkooda iyo dadkooda difaacay isla markaasina waxbarashadooda ku dadaala maanta waxaan ku jirnaa maalintii qabanqaabada xuska munaasabadda sanad guurada 11aad ee maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May oo ay wasaaradda waxbarashadu qayb weyn ka qaadan doonto iyaga iyo ardaydooda inay ku jiraan diyaar garow aad iyo aad u qiimo badan waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa guud ahaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan sidoo kale u hambaleynayaa guud ahaan ka qayb qaatayaasha ardayda wax ka barata dalka oo dhan sida wanaagsan ee qiimaha badan leh ee diyaar garowga ay ugu jiraan waxaan ugu hambaleynayaa maalinta qarannimadeenna iyo sharafteenna inay kor u qaadaan inay ka dhex muuqdaan fagaarayaasha loogu talagalay isku soo baxida lagu xusayo maalinta qarannimada qaranka halkan maanta waxaan joognaa Hargeysa Stadium waxaan ku sameeynaa bariimadii u horeysay ee ardaydu ay ku marayeen gaardiska iyagoo runtii ay ka muuqatay diyaar garow wanaagsan si wanaagsan oo qurux badan lacagta isku helay waxaan ku rajaynahay in ka wasaarad ahaan aan qayb laxaad ka qaadano dabaaldega xuska ay dhimay oo inagu soo foolle hambaliyo gudda qabanqaabada wasaaradda waxbarashada hambaliyo baan leeyahay ilaahay idinkiisa maalinta 18 Mayna ilaahay bashbash barwaaqo inuu gaarsiiyo iyo nabadgelyo farxad leh waa maalin xusid mudan marka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan maamulayaasha dugsiyada ardayda degmada gobolka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada oo runtii hawshan si fiican u soo abaabulay aad iyo aad baad u mahadsantihiin